bilaal ibnu rabaax waa saxaabadda ugu qaalisan saxaabadda rasuulka calayhi salaatu wasalaam. wuxuu ahaa bilaal ibnu ar-rabaax abi cabdillaahi al-xabashi. waxaa la sheegaa inuu ku dhashay magaalada dimashq. sidoo kale waxaa la yidhaahdaa maye wuxuu ku dhashay maka al-mukarama 3 sano ama ku dhow kadib dhacdadii loo yaqiinay caamulfiil. bilaal wuxuu addoon adeega u ahaa mid ka mid ah sanaadiidii iyo ugaasyadii qureysheed kaasoo la odhan jiray umayah bin khalaf oo ka dhashay reerka la yidhaahda bani jumux, kuwaasoo qurayshta dhanka faalka iyo qurbaanta sanamyada u qaabilsanaa. wuxuu bilaal ahaa addoon xabashi ah oo madow kana soo jeeday qaaradda abasiiniya. isaga iyo hooyadiisba waxay ahaayeen addoomo. wuxuu raaci jiray ariga abbaankiisa oo uu mayracin jiray duleedka iyo buuraha maka, galabtiina soo carraabin jiray. shaqooyin adag oo adeeg iyo dhib ku jirta ayuu la deris ahaa intuu addoonka ahaa. waxayse xaaladdii isbeddeshay markii la soo saaray maxamed ibnu cabdillaahi calayhi salaatu wasalaam nebi ahaan iyo rasuul. markaasoo bilaal uu ka mid noqday caaraddii koowaad ee ugu horraysay ee muslimta. bilaal wuxuu ahaa shakhsi uu ilaahay u doortay inuu ka mid noqdo kooxdii ama qaybtii yareed ee farakutiriska ahayd ee rumaysay nebigeenna suuban calayhi salaatu wasalaam horaantii dacwada islaamka. wuxuuse ahaa nin qarsan jiray islaamkiisa jeer maalintii dambe uu ogaaday sayidkiisa umayah bin khalaf al-jumuxi. halkaas ayay ka bilowdeen maalmihii madoobaa ee bilaal lagu cadibayey jeer uu ku dhowaaday geeri iyo inuu ciqaabtaasi la dhinto. haddiina raxmadda eebbe aanay jiri lahayn wuxuu bilaal noqon lahaa mid la dawaqa xanuunkii ciqaabta ee soo gaadhay, dabeetana sababta inuu ka noqdo wixii laga reebayey oo ahaa islaamka, taasoo ciqaabta la marsiiyey marka loo eego ay adag tahay ina lagu sii adkaysto. wuxuuse bilaal ahaa nin sugnaan iyo sabir badan oo adkaysigiisii qiimaha badnaa uu ka ilmaysiin lahaa buuraha waaweyn, baduhuna ay la hirtuuri lahaayeen. ku sabraha xaqa, adkaystaha sugnaanta badan. abuu cabdillaahi al-xabashi waa shakhsiga uu magaciisa camiray dunida islaamka. waana ninka uu ilaahay ku suntay maanta inuu dhammaan ummadda islaamka u noqdo sayid la weyneeyo oo qiimo iyo qadarin aad u weyn ku leh qof kastoo muslim ah agtiisa. waa sidaase alle kor ahaayee baanan dayicin ajarkiisii oo ka yeelay mid markii la xusaaba la yidhaahda sayidkeenna bilaal ilaahay ha ka raalli noqdo. inkastoo ay dacwadu cusbayd, bilaalna uu ahaa nin maqlo hadalka abbaankiisa oo adeeca. markii lagu yidhi ka noqo rumaynta maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo diinta uu la yimid, wuxuu la soo baxay dabeecad aanu abbaankiisu horay ugu aqoon, taasoo ahayd inuu dafiro oo uu iska diido amarkaas. wuxuuna yidhi, marna dhici mayso inaan ka noqdo diintan uu la yimid maxamed calayhi salaatu wasalaam. hanuunka alle ka sokow, bilaal wuxuu nin aqoon u lahaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo arki jiray, yaqiinay runtiisa, iyo inuu ahaa nin akhlaaqdiisu ay maka oo dhammi ka sheekaynaysay. sidaas darteed buu durbaba bilaabay inuu u iisho dhanka xaqa oo uu ku mintida ilaa uu ku geeriyooda, asagoo taas yaqiin aad u weyn yaqiinsan inuu alle ugu dhowaanaya. nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam xilligaasi iyada ahi awood umu lahayn inuu difaaco, balse wuxuu ahaa markuu soo maraba mid u dhimriya oo khayr ugu duceeya. ciqaabtii bilaal la marsiin jiray waxay ahayd mid aanan hal nooc ahayn balse kala duwanayd. waxaase ugu xanuun badnayd midda intii la kaxeeyo mar kasta oo ay cadceeda maka soo kululaataba oo la geeyo barxadda iyo bacaadka luleelka badan, baa asagoo feera qaawan la seexin jiray carradaasi dusheeda, dabeetana dhagax weyn oo sallax ballaaran ah oo kulul loo saari jiray xabadka iyo caloosha. intaas loogama hari jirine, waxaa loogu sii dari jiray xaaladda noocaas ah jeedal iyo in lala dhaca xarig aad u adag oo xanuun badan. sugnaantii iyo sabirkii bilaal waxay sababtay inaannu wax kale afkiisa ka soo bixin mar kastoo lagu yidhaahdo ka laabo diintan ama ciqaabta loo siyaadiyaba, mooyaane inuu yidhaahda axadun axad, alle waa keli, alle waa keli. oraahdaas oo uu ku celcelin jiray mar walba intuu xaaladdaasi ku jiray. ciqaabta kale ee ugu darneed oo la marsiin jiray waxaa ka mid ahayd in qoorta loo suro xarig oo lagu adkeeyo, ayaa lagu wareejin jiray magaalada, oo carruurta iyo haweenka ayay dhagaxyayn jireen saa asagoo dhiigga ka hooraya oo dhimasho ku dhow la xarayn jiray. maalinta dambena ciqaabta sidaas loogu wadi jiray. markaas buu nebigu calayhi salaatu wasalaam aad ula murugooday
oo uu ka xumaaday ciqaabta joogtada ahi ee lagu hayo Bilaal oo aanan awoodi karin wax kale iyo xeelad uu isaga fakiya makastaasi nolosha ku ciqaabayso. Markaasuu u tegey Abuubakar oo ahaa nin maalqabeen ahaa oo xorayn jiray addoommada, markaasuu ka codsaday inuu xoreeyo Bilaal. Dabeetana Abuubakar baa soo maray halkii uu Umayyah ku ciqaabayay Bilaal, markaasuu ku yidhi, war ma iga iibsatid addoonkan? Markaasuu Umayyah arrintaasi ku farxay, waayo wuxuu u arkayay nin madax adag oo haddana aanan dhimanayn, ciqaabtiisana uu ku daalay. Markaasuu qiimo culus sheegtay, saa Abuubakar baa ka iibiyey oo qiimihii siiyey, dabeetana Bilaal xoreeyey. Markaas buu nebiguna calayhi salaatu wasalaam aad ugu farxay una duceeyey Abuubakar. Waxaa kaloo la sheegaa in Abuubakar uu ku beddeshay addoon kale oo gaal ahaa oo u joogay, Allah baase naga og. Xilligaasi isaga ahi kadib Bilaal wuxuu ka mid noqday saxaabadii waaweyneed ee ka ag dhoweyd nebiga calayhi salaatu wasalaam, wuxuuna noqday nin xor ah kadib ciqaab iyo xanuunno badan oo uu soo maray. wax badan kama soo wareegin jeer ay buuxsantay bi'atadii nebiga 13 sano, markaasoo saxaabadii ay u soo qaxeen magaalada Yatrib. Bilaal wuxuu ka mid ahaa caradii dhexe ee hijradaasi, isagoo u jaray masaafo 500 oo kiiloomitir ah ama ka badan si uu u raadsado meel uu rabbigiisa si xor ah ugu caabudo. Caaisha radiyallaahu canhaa waxay tidhi, markii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu Madiinah yimid baa Abuubakar iyo Bilaal ay xanuunsadeen, saa waan u soo galay oo aan ku dhahay, aabbo sideed tahay? Bilaalow, adiguna sideed tahay? Waxay tidhi, Abuubakar markay qandho qabato wuxuu odhanayay, qof kastaa reerkiisuu ku waabariistaa, moodkuna uga dhow kabihiisa suunkooda. Bilaalna wuxuu lahaa allamaan habeen baryo tog ay hareerihiisa ku yaallaan geedka idda qarka buurta Jaliil, oo maalin u arooro biyihii Majinah, oo may ii muuqdaan labadii buurood Shaama iyo Dhufayl. Tani waxay muujinaysaa hilowgii uu u qaaday Bilaal magaaladii uu ku soo barbaaray ee Makka. Laakiin markii ay Caaisha uga warrantay qisadaasi rasuulka calayhi salaatu wasalaam, buu u duceeyey magaalada Madiinah oo uu yidhi, Allahayow, na jeclaysii magaalada Madiinah sidii aad noo jeclaysiisay Makka, ama si ka sii daran, oo barakee darkeeda iyo koombadeeda, oo xumaddeedana naga dulqaad oo u rar Juxfa. Ducadaasi qiimaha badan Ilaahay waa aqbalay, saxaabadiina waxay noqdeen kuwa jeclaada magaaladii Madiinah in ka badan jacaylkii ay u qabeen Makka, waxayna noqotay mid uu sabab u ahaa saxaabigan jaliilka ahi ee Bilaal bin Rawaax. Ku nagaashihii Bilaal ee horraantii hijriyada wax badan kama soo wareegin jeer uu rasuulka Alle calayhi salaatu wasalaam bilaabay inuu la soo baxaa xikmaddiisii iyo xeeshiisii gunta dheereed ee uu ku dhisay dowladda ugu horraysay ee Islaamka. Wuxuu bilaabay tallaabadii koowaad oo ahayd walaalayntii muhaajiriin iyo ansaar, markaasoo Bilaal uu nasiib u yeeshay in lala walaaleeyo saxaabi fadli badnaa oo muhaajiriinta ka mid ahaa. Bilaal nasiib umaanu yeelan in lala walaaleeyo ansaarta, waxaana la walaaleeyey Abuu Cubaydah Caamir bin Cabdillaahi al-Jarraaxi, oo ka mid ahaa saxaabadii ugu fadliga badnayd asxaabta, misna ka midka ahaa 10kii jannada loogu bishaareeyey ee haddana ugu horreeyey ee qaata dacwada diinta Islaamka. Ninkan Bilaal lala walaaleeyey waa amiinkii ummadda Nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam, waana ninka uu Cumar xaggiisa ka yidhi markuu geeriyoonayey, haddii uu noolaan lahaa Abuu Cubaydah, waxaan uga tegi lahaa khilaafada mas-uuliyadda ummadda, waayo waxaan maqlay rasuulka Alle calayhi salaatu wasalaam oo odhanaya, Abuu Cubaydah bin al-Jarraax waa amiinka ummaddan. Ninkaas qiimaha badan ayaa Bilaal uu rasuulka Alle calayhi salaatu wasalaam u doortay inuu la walaaleeyo. Tallaabadii labaad ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu sameeyey markuu yimid Yatrib, Madiinah, waxay ahayd dhisidii masjidka oo ahaa xaruntii ummadda laga hagayey, salaadahana lagu gudanayey. Xilligaasi waxaa laga dooday sidii loogu yeeri lahaa dadka xilliga salaada. Qaar ka mid ahayd asxaabtii nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay soo jeediyeen fikrad ah in la garaaco bir sida nasaarada oo kale, qaarna in buun la yeeriya sida yuhuudda oo kale. Laakiin labada talo ee ficilladaasu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ma cajabinin. Wax badan kama soo wareegin jeer Cabdillaahi bin Sayd bin Rabbi oo ka mid ahaa asxaabtii reer Madiinah uu ku riyooday aadaanka, markaasuu Ibnu Sayd u tegey rasuulka
calayhi salaatu wasalaam oo uu ugu warramay wixii uu ku riyooday. Markaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam amray inuu Bilaal baro aadaanka suu baray, oo nebiguna calayhi salaatu wasalaam u doortay mudankiisii koowaad. Bilaal wuxuu ahaa nin aad u cod dheer una cod macaan, sidaas ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ugu doortay inuu noqdo mudankiisii koowaad, tiyo meesha aanay ka marnayn fadligii iyo darajadii uu heerkaasi ku gaaray. wuxuu noqday muwadankii koowaad ee islaamka ee ummadda salaada ugu yeeri jiray, sidoo kalena toosin jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam xilliga salaada. waxaa sugnaatay in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu mar ku yidhi, bilaalow inoogu raaxay salaada. fadaashiisana waxaa ka mid ah in mar nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi, waxaan galay jannada, saa waxaan maqlay sanqadha kabahaaga bilaalow, ee bal inoo sheeg waxa aad samayso. markaasuu yidhi, walaahi camal qaas ah ma sameeyo aanan ka ahayn in mar kastoo aan weysaysto aan tukado 2 rakaco oo aanan farad ahayn. waxaa kaloo sugnaatay in uu Cumar markuu arka Bilaal uu odhan jiray, Bilaal waa sayidkeennii uu xoreeyey sayidkeennii Abuubakar. darajada Ilaahay cidduu siiyo uunbaa heshee. Bilaal oo ahaa addoon la yasa oo lagu shaqaysta, islaamku wuxuu gaarsiiyey martabad cajiib ah oo aad u qiimo badan. wuxuu noqday haddii uu gabadh doono inaan loo diidin. waxaa waayadii dambe dhici jirtay haddii nin ka mid ah muslimiinta ama saxaabadda nebiga calayhi salaatu wasalaam uu damco inuu reer gabadh ka doonto, inuu u tegi jiray marka hore Bilaal oo uu ka codsan jiray inuu la doono gabadhaas, waayo waxaa caan ahayd oraah ay muslimiinta dhexdooda is odhan jireen, Bilaal gabadhuu doono lama diido. reerka gabadha laga doonaya badanaa haddii aanu ragga gabadha doonay uu la soconin, Bilaal ma aanay bixin jirin gabadhooda. qolo gabadh doonaysa oo uu Bilaal la socdana ma loo diidi jirin, mana dhicin in marna loo diido. Bilaal ibnu Rabaax, saxaabigan jaliilka ahi, wuxuu guursaday gabadh aad u qiimo badan oo ka dhalatay reerka abtiyaasha u ahaa nebigeenna calayhi salaatu wasalaam. reer Bani Zuhra oo ka mid ahaa reerka ugu qiimaha iyo sharafta badnaa Qurayshta. marka laga yimaado reer Haashim ayay ka dhalatay xaaskii Bilaal, waxaana la odhan jiray Haalah bint Cawf, taasoo la dhalatay saxaabiga jaliilka ahaa ee Cabdiraxmaan bin Cawf oo ka mid ahaa 10kii jannada loogu bishaareeyey. Bilaal wuxuu nasiib u yeeshay inuu ka qayb qaato dhammaan dhaqdhaqaaqyadii uu hogaaminayey nebigeenna suuban calayhi salaatu wasalaam oo idil, wuxuuna xaadiray duulaankii weynaa ee Badar isagoo wacdara muujiyey. wuxuu ka mid ahaa raggii kufaarta sanaadiiddii Quraysheed madaxa ka jaray maalintaasi. Cabdiraxmaan bin Cawf oo ahaa mid ka mid ahaa saxaabadii ugu fadliga badnayd asxaabta nebiga calayhi salaatu wasalaam, kana mid ka ahaa 6dii ugu horraysay ee ku islaamta dacwada diinta islaamka, ayaa ka mid ahaa dadkii dagaalkan Badar xaadiray. ibnu Cawf waxay magaalada Maka markii la joogay ay saaxiibbo ahaayeen ninkii addoonsan jiray Bilaal oo la odhan jiray Umayyah bin Khalaf al-Jumahi. markiina uu islaamay, Cabdiraxmaan wuxuu ka tegey saaxiibtinimadiisii oo ka doortay Allah iyo rasuulkiisa. maalintii Badar markii ay jabeen kufaartii Quraysheed oo in badan oo ka mid ah la qabqabtay, ayaa Umayyah wuxuu ka mid ahaa raggii xeeladda ay ku baxsadaan waayey. markaasuu arkay Cabdiraxmaan bin Cawf oo uu ugu yeeray magacii jaahiliyada uu u yaqaanay, Cabdi Camrow. waar ma kuu sugnaatay inaad aniga iyo wiilkaygabana qafaalato oo aad hadhow qaadato madax furasho wixii aad doonto ah? markaasuu Cabdiraxmaan qafaashay asaga iyo wiilkiisiiba oo xarig ku giijistay. saxaabadda dhexdooda waxay ahayd caado inaanay isu daba marin qafaalkooda, oo qof ninka uu soo qafaasho waa lagu ixtiraami jiray. Bilaal oo isqaadqaad iyo laynta cadowga ka soo faaruqay ayaa indhaha qac ku siiyey Umayyah ibnu Khalaf iyo wiilkiisii oo isla xihan oo Cabdiraxmaan uu wato. markaasuu Bilaal af muggii dhawaaqay asagoo odhanaya, waa Umayyah. cadowgii Ilaahay ima badbaadiya haddii aan badbaadiya. dabeetana wuxuu u yeertay ansaartii Madiina asagoo odhanaya, ansaarey, waa kan cadowgii Ilaahay ee Umayyah, allow aanan badbaadin haddii uu badbaado. Cabdiraxmaan bin Cawf ayaa qayliyey oo yidhi, Bilaalow, ninku waa qafaalkayga. markaasuu Bilaalna yidhi, allow aanan badbaadin haddii uu badbaado. dabeetana seefihii ayaa lagu bilaabay.
wuxuu yidhi cabdiraxmaan markii aan arkay waxa dhacay ayaan ku dhahay Umayya waa adiga iyo naftaada. Raggii goobtaasi dhawaqa Bilaal ku yimid ma ahayn oo keliya ansaarta, balse codka Bilaal inay ajiibaan waxaa u nuglaa saxaabada oo dhan, kuwooda muhaajiriinta iyo kuwooda ansaarta ahba. waxaa ka mid ahaa raggii goobtaasi yimid Cammaar bin Yaasir al-Canasi oo ka mid ahaa asxaabtii fadliga badnayd ee nebigeenna calayhi salaatu wasalaam, kana mid ahaa raggii u soo dhibtooday diintan. Cammaar wuxuu dilay wiilkii Umayya, Bilaalna wuxuu dilay Umayya oo ay la dileen asxaabtiisii. Asxaabtii oo idil ayagoo maqlaya hadalka Cabdiraxmaan bin Cawf ee ah, war waa qafaalkayga, ayaanay ajiibin oo ay yeeleen hadalkii Bilaal, taasoo ku tusinaysa shanigii iyo weynidii uu Bilaal ku lahaa saxaabada agtooda. dhacdadaasi halkaasi ka dhacaysa waxaa ku dhaawacmay Cabdiraxmaan bin Cawf oo seefihii muslimiinta ay lugta ka dhaawaceen, wuxuuna odhanayay Cabdiraxmaan markaasi asagoo dhutinaya, Ilaahay ha u naxariista Bilaalee wuxuu imootiyey qafaalkaygii, lugtaydiina wuu dhaawacay. dagaalkii Uxud wuxuu ka mid ahaa raggii ugu horreeyey ee soo laabtay kadib markii ay jabeen asxaabtii nebiga calayhi salaatu wasalaam. markii la furtay magaalada Maka sanadkii 8aad ee hijiriga, wuxuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam la galay gudaha Kacbada Bilaal bin Rabaax iyo Usaamah bin Sayd oo uu aad u jeclaa. wuxuu mar kale Bilaal nasiib u yeeshay isagoo ahaa muwadankii koowaad ee Islaamka inuu mar kale noqdo muwadankii koowaad ee xaramka Maka. intuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku sugnaa magaalada Maka oo dhan asaga ayaa u adimayey salaadaha, markiina uu nebigu calayhi salaatu wasalaam ka soo tegayey magaalada ayuu muwadan uga dhigay Abuu Maxduur Samurah bin Mixjan at-Taqafi oo wiil dhalinyaro ahaa. Bilaal wuxuu ku baaqi noqday magaaladii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo uu muwadan ka ahaa intuu nebiga calayhi salaatu wasalaam noolaa oo dhan. markiina uu nebigu calayhi salaatu wasalaam geeriyooday waxaa Bilaal ka xoog badisay murugadii uu u murugooday xabiibkeenna suuban calayhi salaatu wasalaam, wuxuuna go'aansaday inuu isaga tego aadaanka kana mid noqday musalliintii saxaabada. horaantii khilaafadii Abuu Bakar inkastoo ay murugo badan dabooshay, haddana wuxuu Bilaal la shaqaynayay khaliifadii rasuulka alle ee Abuu Bakar Sidiiq. maalin maalmaha ka mid ah, mar muddo laga soo wareegay geeridii nebiga calayhi salaatu wasalaam, ayaa maalin Jumca uu Abuu Bakar ka codsaday Bilaal inuu maanta addimo salaada. markiina uu Bilaal aadaankii bilaabay ayaa Madiina cirif iyo dacal laga wada ooyey oo la soo wada xasuustay noloshii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam, asxaabtii oo idilna ay ilmadu hibisiqleeyeen oo ay aad u ooyeen. aadaankii markuu dhammeeyey ayuu Abuu Bakar Sidiiq ka codsaday Bilaal inuu muwadannimada ku soo noqdo oo masjidka nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ka addimo, balse Bilaal arrintaasi wuu ka cududaartay. khilaafadii Cumar bin al-Khadaab wuxuu Bilaal ahaa mas-uulkii u xilsaarnaa wafdinta gobollada oo isku xiri jiray magaalooyinka gobollada iyo Madiina, saldhiggiisuna wuxuu ahaa magaalada Madiina oo uu kula shaqayn jiray amiirkii muuminiinta. maalintii laga casilayey qaa'idkii weynaa ee Khaalid bin Waliid imaaraddii Qinasriin, wuxuu ahaa Bilaal ninkii uu Cumar u diray, saa Bilaalna mimbarkii Ximsa inta koray, Khaalidna uu hoos taagnaa iyo Abuu Cubayda oo uu ku dul akhriyey warqaddii Cumar. Bilaal ma gaarin khilaafadii saddexaad ee Islaamka Cusmaan bin Cafaan, wuxuuna geeriyooday intuu noolaa Cumar bin Khadaab. sanadkii 20aad ee hijiriga ayuu ku geeriyooday magaalada Dimashq oo la sheego markii hore inuu ku dhashay. Bilaal wuxuu ahaa saxaabi jaliil ah oo ka mid ahaa asxaabtii fadliga badnayd ee nebigu calayhi salaatu wasalaam uu aadka u jeclaa. Ilaahay ha ka jaasiye wanaaggii uu u soo qabtay Islaamka, hana u nuuriyo qabrigiisa. sayidkeenna Bilaal, rabbigeenna ha ina siiyo sabarkiisii iyo sugnaantiisii oo kale.